tababarkan iyo ka soo qaybgalayaashaba waxaa ka soo qaybgalay tababarkan maanta loogu talagalay bulshada rayidka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo bangiyada si ay u ogaadaan wasaaradda cadaaladda dadaalada ay wado oo la xiriira dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa saad la socotaan haddii la helo cadaalad iyo dowlad wanaag musuqmaasuqa meesha wuu ka baxayaa wasaaradda waxay aad iyo aad ugu dadaashay inay horumariso cadaaladda guud ahaan iyo aasaaskii cadaaladda inay dhisto si hadda loo sheegay laba guddi oo aad iyo aad muhiim u ah dalkan in hadda baarlamaanka geynay golaha adeega garsoorka oo garsoorka lafdhabar u ah iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo asagana dowlad wanaagga lafdhabar u ah waxaan kala hirgelinay shuruuc siyaasooyin waxaana ka qayb qaadanay inaan ku biirno heshiisyo caalami ah oo uu ka mid yahay kan United Nationka iyo kan African Unionka iyo kan carabta jaamacadda carabta oo ayagana loo diyaariyey inay kaabaan shuruuca maxalliga aan leenahay sababta loo beegsaday bulshada rayidka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay waxay qayb weyn ka qaadanayaan dowlad dhisidda iyo horumarka dalka qayb weyn ay ka qaadanayaan marka inaan isla socono dowlad ahaan qorshihii iyo istiraatiijiyadii la dagaalanka musuqmaasuqa aan diyaarinay iyo guddiyada aan hadda dhisayno iyo heshiisyada caalamiga oo aan qayb ka noqon rabno inaan la socodsiino bulshada rayidka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si dowladda iyo shacabkaba ay isla socdaan waa la idin sharxay marka shuruucdan aan sheegayo iyo heshiisyadan maanta lasoo bandhigay iyo waxay ku qoran yihiin waa la idin soo bandhigay waxaana joogaa looyaro kolay ka socdo bulshada rayidka wayna ku mahadsan yihiin talooyinkooda iyo tusaalooyinkooda oo ayagana la dhageystay ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahaa in laga hortago musuqmaasuqa la helo dowlad wanaag shuruucna loo diyaariyo wasaaradda cadaaladda wax weyn bay ka qabatay waxaan haddana aad iyo aad u soo dhaweynayaana ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraheena cusub maxamed xuseen rooble oo asigana shalay khudbadiisa ku sheegay barnaamijka xukuumadiisa inuu ku soo dari doono qodobka ka hortagga ee la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan diyaarinay shuruuc waxaan diyaarinay siyaasooyin waxaan diyaarinay heshiisyo caalami oo looga hortagi karo waxaan aaminsanahay wasaaradda cadaalad ahaan inaan hadda meel fiican arrintaas marin hayno anagoo weliba ku dadaalhayno dib u habeynta garsoorka taas oo ay ka qayb qaadan doonaan insha allahu markii la dhiso golaha adeega garsoorka oo hadda baarlamaanka hor yaallo shaqo badan baa noo taasha doonta waa la wada saaran yahay dadka dowladda u shaqeeya iyo dadka u shaqeeyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo bulshada rayidkaba iyo culamaa udiinka kulli waa doon la wada saaran yahay
waxaa la rabaa dalkan xaaladda hadda ku jiro dhaqaale, xaaladda hadda ku jiro amni, xaaladda hadda ku jiro arrimaha bulshada, xaaladda uu ku jiro xagga cadaaladda, intaasba in wax laga qabto ayadoo la raacayo dowlad wanaag, laga fogaanayo musuqmaasuq sidii shuruucdan ay u diideen. shirarka noocan oo kale waan sii wadi doonaa insha allah. shirkan ka horeeyey mise kulankan ka horeeyey tababarka ahaa waxaa loo qabtay hay-ooyinka dowladda loo qabtay oo qeybta maaliyadda iyo qeybta maaragtay garsoorka, qeybta qeybaha